asalaamu calaykum saaxiibayaal kusoo dhowaada qodobada wararkeena ugu doorka roon. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo dib loo helay. Maxay tahay xogta rasmiga ah ee madaxweynaha loo waayay 4 beri oo isku xigta? Waan ila wadaagi doonaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo wada kulamo gees-geesa uu la wado madaxdii hore ee dalka. Maxay ka wada hadleen? Fadlan kusoo dhowaada warkii oo faahfaahsan. dowladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la kulmay dhigiisa madaxweynaha dowladda Imaaraadka Carabta Sheekh Mohammed bin Zayed. labada madaxweyne ayaa ka wada hadlay xiriirka qotada dheer ee ka dhaxeeya wada wadan ee walaalaha ee Soomaaliya iyo dowladda Imaaraadka Carabta. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sidoo kale uga mahadceliyay qaabilaadda iyo caasimaadda uu u fidiyay madaxweynaha Imaaraadka Sheekh Mohammed bin Zayed. wada hadal iyo salaan kadib dowladda Imaaraadka ayaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud u ballan qaaday inay bixin doonto lacag 20 milyan ah oo ugu deeqdo abaaraha ba'an ee ku dhuftay shacabka Soomaaliyeed. sidoo kale dowladda Imaaraadka iyo dowladda Soomaaliya ayaa ku heshiiyay shacabka Soomaaliyeed in loo fududeeyo fiisaha. sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka codsaday in dib loo furo duulimaadkii ay ku imaan jireen shirkadaha Imaaraadka magaalada Muqdisho. sidoo kale waxaa la isku afgartay in dib loo firo hosbitaalka Sheekh Mohammed bin Zayed ee ku yaala magaalada Muqdisho oo dib loo xiray kadib khilaafkii hareeyay dowladii hore ee Soomaaliya ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo dhacdooyinkii xumaa ee ka duldhacay dowladii hore ee Soomaaliya iyo dowladda Imaaraadka. sidoo kale dowladda Imaaraadka ayaa ballan qaaday inay soo diri doonto maalmaha soo socda wafdi heer caalami ah oo booqasho rasmi ah ku imaan doona magaalada Muqdisho. safarkan ayaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud la rajaynayay siduu shaaciyay inay ku qaadan doonto 2 beri. haatan ayay ku kaliftay muddo 4 beri ah inay is arkaan madaxda Imaaraadka. ilo xogaale ayaa sheegaya madaxweynaha in lagu xanibay hotel ku dhow aeroboortka la yiraahdo Hilton Hotel, halka ilo xogaale ay sheegayaanba in madaxweynaha la xiray, halka ilo kale oo saddexaad ay sheegayaan madaxda inuu ku dhacay xanuunka la yiraahdo coronavirus oo sida ka muuqatay markii la kulmayeen madaxda Imaaraadka inuu borotokoolka afxirku u saarnaa madaxda Soomaaliya iyo madaxda Imaaraadka, halkaas ay cadeynaysa in madaxda Soomaaliya uu ku dhacay xanuunka coronavirus sida darteed looga cabsi qabo. haatana dhageystayaal waxaan soo gaarnay qaybihii dambe ee warka. ra'iisul wasaaraha magacaaban ee dowladda federaalka Soomaaliya mudane Xamse Barre ayaa kulamo dhinaca la qaatay madaxdii hore ee dalka. ra'iisul wasaaraha ayaa kulankiisa ku bilaabay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed, halkaas ay ka wada hadleen xaaladda dalka. Shariif ayaa uga mahadceliyay ra'iisul wasaaraha booqashadiisa. sidoo kale ra'iisul wasaaraha ayaa u boqolay dhankaas iyo guriga madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, halkaas oo kula kulmay kulankiisa labaad isbuucan gudihiisa. labada mas'uul ayaa kulankooda maanta goobjoog ka ahayd saxaafadda, halkaas oo lala wadaagay shacabka sawiradii kulankaasi. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa aad ugu mahadceliyay ra'iisul wasaare Xamse booqashadiisa, ugana baryay Ilaahay inuu shaqadiisa u fududeeyo. sidoo kale shacabka Soomaaliyeed ayuu ka codsaday in lala shaqeeyo. ra'iisul wasaare Xamse ayaa kulankiisa sidoo kale kusoo gabagabeeyay guriga uu ka degan yahay magaalada Muqdisho ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa si diiran u soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha magacaaban, ugana baryay Ilaahay inuu u fududeeyo shaqadiisa. Xasan Cali Khayre ayaa kula dardaarmay ra'iisul wasaare Xamse inuu xoojiyo dowladnimada, korna u qaado hanaanka dowladda, sidoo kale aadna ugula dardaarmay hanaanka deyn cafinta Soomaaliya inuu il ku hayo. Xasan Cali Khayre ayaa sidoo kale ku booriyay ra'iisul wasaaraha cusub inuu soo dhiso dowlad tayo leh uusan ku salayn xil magacaabista saaxiibtinimo iyo hanaan qabiil. kulanka ra'iisul wasaaraha magacaaban ayaa ahaa xalay mid goos ah uuna ugu tegayay mas'uuliyiintii hore ee waddanka soo hogaamisay si dheelitiran. dhageystayaal waa naga intaas wixii waraad nooga barateen. fadlan haddaad kanaalkeena ku cusub tahay subscribe saar si aad ula socoto warka xiga. mahadsanidin.